haddaba dad ku dhintay qaraxaas waxaa ka mid ah wariye maxamed ciise koona oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho kaasoo warbaahinno fara badan kasoo shaqeeyey. taariikhdiisa waxaa nooga sheekeeyey ama aan ka wareysanay wariye cabdikaamil yuusuf maxamuud. waxaa xusid mudan in allah naxariistay wariye maxamed ciise koona uu kasoo shaqeeyey halkan aan kala hadlayno Shabelle radio iyo sidoo kale Shabelle TV. waxaad kusoo dhawaataan wareysigan aan la yeelanay cabdikaamil oo ay wax isla soo barteen allah u raxmadee maxamed ciise koona. إنا لله وإنا إليه راجعون. حقيقة waxay geeri aad u naxdin badan inkastoo musiibadii maanta dhacday guud ahaanba ay naxdin badneed haddana mar walba qofka ku dhow aqoonta uu leeyahay ama dhiiggiisa ama walaal ah way uga sii xanuun badan tahay dadka kale. horta marka hore ummadda Soomaaliyeed guud ahaan maadaama nin saxafi ah weliba arrimaha bulshada warbixinada ku saabsan aad xoog u saara uu ahaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan uga taxsiinaya geeridaas naxdinta leh. marka labaadna ehelkii qaraabadii oo ka baxay. marka saddexaadna bahda saxaafadda ayaa si gaar ah uga taxsiinaya geeridii ku timid maxamed ciise koona. runtii maxamed ciise koona wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo firfircoon, nin wuxuu ahaa aqoon-yahana oo jaamacad ka soo baxay dalka Suudaan. runtii maxamed ciise koona aniga asiga waxaa isnaqaaneen muddo dheer, aqoonis keliya ma ahayn, dad ceesho milix ah oo wax badan wadaaga ayaa ahayn. jaamacad wuxuu ka soo baxay Garden City la yiraahdo oo ku taal magaalada Khartoum caasimadda dalka Suudaan, halkaas oo xilli waxbarashadeedkiisa iyo xilli waxbarashadeedkiga isku beegnaayeen. dadka kalena wuxuu ahaa asigoo arday nin saxafinimada ku shaqeeya oo TV-da madaxa bannaan qaarkood la soo shaqeeyay. koona markii uu ku soo laabtay magaalada Muqdisho haddana mar kale wuxuu dib uga howl bilaabay warbaahinta gudaha ee magaalada Muqdisho. wuxuu ahaa wariye firfircoon, ahludiin ah, talooyin siiya dhalinyarada. dhanka kale waxaa jirta oo iyadana xusid mudan naxdintii ka naxay geeridiisa mar labaad haddana waxay ahayd mid si gaara naxdin gelisay in uu ahaa koona uu ahaa madi qoyskiisa qofka keliya ee ka noolaa ayuu ahaa. ilaaha u naxariisto allah u naxariisto. shakhsi ahaan waxaad sheegtay inaad muddo istaqaaneen, sanadkee isbarateen labadiina maadaama bahdii waxbarashada iyo midda saxaafaddaba aad iskula jirteen? inkastoo aan si dhaba u xasuusan waxaa isbaranay 2017 inay ahayd rajeynaha haddii aysan ahayn 12. xilligaas waxay ahayd xilligii oo si toosa oo wejiga isku barano, laakiin inta Suudaan uusan tagin ka hor ayaa waxaynu ka xiriiri jirnay barta Facebooka. koona nin ahludiin ahaa, nin wuxuu ahaa salaada ku dadaala, dadka aan dulmin, dacdac iyo xadgudub aan aqoonin, shaqadiisa daacad u ah, dhalinyarada talooyinsiiya, hami fog ayuu ka lahaa nolosha iyo mustaqbalka. waxa uu ahaa keligiis marka qoyskiisa la eego. haddii meeshaas waxyar u jilciyo bulshadan markaas dhegeysanaysa warbaahinta Shabelle, maxamed ciise noloshiisa hadda ka hor xadiiqo ama meel beer ah ayaa habeen annagu ku sheekeysanayno. sheekadii waxayna la gashay in uu iiga sheekeeyo shakhsiyadiisa. maxamed wuxuu iiga soo bilaabay allah u naxariistay hooyadiis iyo aabihiis in gacanka xaqdar ay dileen oo ay ku dhinteen dil la dilay oo kaana loo dilay. xilligaas wuxuu ka dambeeyay asiga iyo wiil kale oo yaroo la dhashay, labadoodiiba waxaa markaas mas'uuliyadoodii la wareegtay ayeeyadiis. koris ayuu ahaa iyadana xilligii madaafiicda loo yaqaano fooriyaha ay ka socdeen magaalada Muqdisho ayaa ayeeyadiisna hoobiye ku dhacay oo iyadana sidii ay ku dhimatay sida iiga sheekeeyay. xilligaas wuxuu ka dambeeyay waxaa kusoo xigay safarkiisii Suudaan waxbarashada uu soo aaday. walaalkii la dhashana waxa uu aaday South Africa, halkaas uu shaqo doontay. waxay ahaayeen laba wiil oo hooyo aabba aan lahayn, walaal kale ay weeshadaan isan jirin. hal sano ka hor ayaa iyadana tii alla ku timid walaalkiis oo waxaa niman burcada ay ku dileen dalka South Africa. sidaas ayuu maxamed ciise wuxuu ku noqday nin keligiis ah oo qoyskiisa markaas asiga keligiis ka nool
challenge nin nolosha kula jira intaasoo dhibaato iyo xaaladahaasoo soo maray haddana ma ahayn in yar laga dareemi karay in markaas qoyskiisa keliya uu karo ama mushkiladda intaas la haysto uma ekeen wuu faraxsanaa wuxuu ahaa nin hamile wuxuu ahaa nin aan waxaa ku tilmaama garanayn yani wanaagoo dhan ilaahay subxaana watacaala uu isugu keenay maxamed ciise hadda ifka oo kaga tegay hal cunug xaaslu ahaa alxamdulilah laakiin qoyskiisa ninka keliya ka nool jaalajigaas ku jiro ahaa maantana tiisii ayaa timid ilaah u naxariisto dhammaanteena sadar iyo iimaan allah naga siiyo bal waxaad ka warantaa shakhsi caynkee ayuu ahaa maxamed ciise allah u naxariisto wallaahi shakhsiyadiisa markaa cabdirashid waxaa moodaa in dadka markii la eego iltizaamka waxaa yidhaha oo ka muuqdo macnaha waxaa ula jeeda ballamaha wuu ku fiican yahay oo weliba soomaalida waktigii la ballamo waxaa laga yaabaa inay nusaac ama xilli kale kasoo dibdhacaan iyagoo ku xisaabtamaya in meesha cid walba ay kasoo dibdhacayso asiga ballanta nin ku aad adagu ahaa wuxuu ahaa nin oo dhalinyarada kula taliyay inay guursadaan oo mustaqbal ay sameeyaan taasoo wax badan ka difaacaysa wuxuu ahaa nin shaqadiisa aan jeclayn habsant inay ku dhacdo oo u degdego waxyaabihii layaab kalaa waxaa ka mida oo xasuustaa dhanka shaqada markii la yidhahdo maxamed ciise wuxuu qaatay fasaxii xilligii guurkiisa idaacadda shabeelle ayuu ka shaqeynaya xilligaas agaasimaha tusma t v ayaa ahaa saaxiibkii fasaxii xilligoo qaatay iyo xilliga aqalgalkiisa waxaa horeeyay xilliga fasaxa fasaxii oo kasii dhammaanayo ayuu aqal galay maxamed ciise 7 asoo ka bixin ayuu fasaxiisa ku ekaa weliba saasay tahay 7 asoo ka bixin oo wuxuu ahaa nin u dheelmada asoo shaar casalkii ku jira shaqada weliba dadka shaqada soo xaadiraya inuu ugu soo horeeyo maahane aan ka dibdhicin wuxuu ahaa nin magaranaysaa mar walba ku fikira hami fog sidii lagu sameyn lahaa horumar sidee bulshada soomaaliyeed u caawin karnaa maadaama saxafiyiin aan nahay annagoo luuqadda saxaafadda iyo awooddeeda adeegsanayna bulshada maxaa u tiri karnaa wararka arrimaha bulshada jeclaa in uu soo sameeyo maxamed wuxuu ahaa nin aan ku xasuusto hadda ka hor in mar barnaamij asigoo igala qayb galay marti uu igu ahaa anada diyaha ka ah kelmadoodahay oo aan iloobina jirto marka maxamed da'diisoo kaleeta la rabay in la eego maxamed wuxuu yidhi aniga waxaa ahay taallo u taagan taariikhda burburka soomaaliya taariikhda burburka soomaaliya marka wuxuu la jeedaa yani waxaa dhashay burburkii soomaaliya bilowgiisii ilaa imika soomaaliya ee burbursanta oo dhibaatada ka jirto dil dhac kufsi balaayo dhan ay ka dhacayso ayaa noolahay marka aniga taariikhdeeda intaa noolahay iyo taariikhda soomaaliya intay burbursantaha ayaa isla eg saas ayuu ula jeeday marka ugu dambeyntii waxaa sheegtay muddo dheer aad istaqaaneen muddo saxaafadda uu ku jiray dalka dibaddiisa wax ku soo barta uu soo laabtay ma jiraan warbixino guulaystay oo arrimaha bulshada uu sameeyey maxamed ciise intaa taqaan allah naxariistee walaahi waxaa jirto warbixino badan oo saameyn yeeshay waxaa ka xasuustaa warbixin uu ka diyaariyey buundada koowaad marka dhanka number 4 la eego marka dhinaca kale qofku uu jiro buunda koowaad waxaa noqonaysa buundada dhanka ceelgaabta jirta laakiin buundada kale soo jirta dhankan suuqa ansaloti wiil iska soo tuuray oo jaceyl dadkiisa markaas warbixintiisa waa ku jirta kelmad ahayd buundada jaceylka hadda mararka qaar xilliyada bajaajka saaranaya ama goobahaas ka ag dhawaayo dadka waxay dhahaan buundada jaceylka mareyna ama buundada jaceylka waxaa umalaysaa in magacaas saameyn uu yeeshay warbixintiisii ayaa laga soo dambalo laga soo saaray warbixino noocaas oo kale oo iyana saameyn yeesha ayuu maxamed diyaariyey oo ay ka mid tahay warbixintii ku saabsaneed saayinta dheemanka iyo waxyaabaha badda ay soo tuurto oo uu waraysiyo kasoo sameeyey taariikhaha inuu warbixino ka diyaariyo jeclaha degmooyinka ayuu warbixino ka diyaarin jiray maxamed nin hal abuur leh ayuu ahaa anigoo agaasimo ah oo t v maamula ayuu wuxuu igula talin jiray qaabkii horumarka t v-gaas uga shaqeyn lahaa wuxuu igu dhiirigelin jiray in mar walbo aniga sida ay u shaqeeyaan saxafiyiinta maamulka u ahay si lamida ama kasii ballaaran ula shaqeeyo isla markaasina wuxuu isku dayi jiray in jadwalka iyo waxyaabahaas uu ila hagaajiyo marka inuu aafir fircoon oo hami fiicanna leh
saaxiibada jecel nin dadka jecel nin in la caawiyo jecel nin garab istaaga aad u daneeya nin cajiib u ahaa maxamed waxaa ku tilmaami kara ma aqaano waagiisa heerkuu gaarsiina qadartiisiina waa timid kullu nafsi daa'iqatul mawt waqtigii الله نحرس